كمد الشرف تله مدن قدومي قرصو ريال يدمان كسوق يبقلياشا محضر كفدية هديهين قرينة هديهين فيسك حرلاليا قودي قرنك هديهين دمان انت محضر كفديس وحنك سلام يا سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان رباينا هندو إن شاء الله هدو إلى إرادة أنكور مرو عبد الكافي حسن محمد مدن قدومي قرصو ريال محكمة الشرف تله. طبعا عبد الكافي waxaa lagu soo eedeeyay anigoo ah abukaat Cabsaaq Xaaji Cumar طبعا waxaa lagu soo eedeeyay qodobka 241 farqadiisa koowaad lala akhriyay 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad farqadiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo sidoo kale qodobka 28aad sharci lambar 1 soona baxay 2016 bishii labaad 2021 sharciga hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane gudoomiye intii aan ku guda jiray difaacigii waxaan horay u soo cadeeyay in wakiilkayga eedihii lagu soo eedeeyay ahaayeen eeda aan loo meeldayin dabcan waxaa lagu eedeeyay in lacago ka yimaada safaaradaha ay ku soo dhici jireen akoonadiisa طبعا taas horta la iskuma haysto in lacag ku soo dhici jireen akoonkiisa xafiiska waxa la soo gudbiyay hadda cadeyna waraaqdaas waxay ku saxiixan tahay loogu ogolaaday xisaabiyaha guud oo ku ogolaanayo in akoon lagu furayo akoon ha lagu furo maxuma maxay tahay sababta bishii 8aad asiga wuxuu tagay bishii 7aad uu tagay laakiin waxa xisaabiyaha guud oo ogolaaday maxay xisaabiyaha guud wuxuu ogolaaday waa bishii 8aad in yar markuu joogay ayuu wuxuu sameeyay waraaqad ah in akoon la furo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda loo furo dabcan asbaab jirtay loo furi waayay asbaabtaasna waan cadeynay taas haddii aan ka baxna asbaabtaas waxaa jirtay su'aal si waadix ah loo weydiiyay hanti dhowraha taasoo wakiilkayga ahayd midii bari yeeshay wuxuu hanti dhowrku si daahfuran u sheegay maadaama baarista sal looga dhigay in akoonada cabdikaafi lacag walba oo ku soo dhacdo si toos ah ugu shibay akoonka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda annagu halkaas ka sii ambaqaadayna baaristoodii markay sheegeen akoonka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda cabdikaafi su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay ma ku leeyahay saxiix ayadana oo ma awooda lacag inuu ka bixiyo ayadana maya baarista dhan intaas bay ku soo koomaysaa oo waxay tahay wakiilkay waxyaabaha bari yeelaya waxay tahay oo aan laga jawaabi karin oo salay u tahay waxay tahay waxa ay sheegeen in lacagaha ka yimaada ku soo dhaca dhammaantooda ay ku soo dhacaan akoonka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda isla akoonka hay'adda socdaalka iyo jinsiyaddana marka uu ku shubo uusan ku lahayn wax saxiixan ayadana way sheegeen oo uusan wax lacag ka bixinin haddaan taas halkaas aan uga baxo mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan sidoo kale aan cadeeyo waxaa jirtay lacago akoonka cabdikaafi ku soo dhacay ee ay soo gudbiyeen ay dhaheen lacagahan xagee mareen waxaan sheegnaa bit by bit meel walba lacag walba meeshay ku dhacday iyo akoonka hay'adda socdaalka jinsiyadda meesha uu kaga diray lacag walba oo kamid ah maxkamadda horteeda waa ka cadeyna marka macdaalik maba ahaynba wakiilkayga xaaladan inuu soo gaaro maba ahayn marxaladan inuu soo gaaro oo maanta 119 inuu soo gaaro maysan ahayn in maxkamaddu ay bari yeeshay ayay ahayd oo 115 uu ku tago maadaama aysan jirinba wax cadeyma mudane gudoomiye anigoo soo koobaya oo aan waqtiga ka qaadin maxkamadda waxaan cadeeyay oo cadeynteeda iska rogay magacaabistii cabdikaafi agaasimayaashii waan soo gudbiyay iyo agaasimo walba oo la shaqeynay agaasimo guud walba oo la shaqeynayay agaasimo walba ogolaanshiyihii uu ka haystay warqadii hadda oo kale waxa waaye waa agaasimo walba ogolaanshiyaha uu ka haysto ogolaanshiyo ah in loogu soo diro akoonka lacagta dabcan waa dareemi karnaa xilligii 2016 sharciga 2019kii ma uusan dhaqan galin xilligaas sidoo kale waa loo ogolaaday isla sidaas la mid agaasimihii ku xiga asigoo tix raacay ayuu asna u ogolaaday agaasimo walba uu ogolaanay waana la xisaabtamay xisaab ayaa sanad walba la sameynay marka waxaan rabaa inaan maxkamadda sharafta leh aan ka codsado guntii gabagabadii cabdikaafi xasan maxamed inay maxkamaddu ay bari yeesho dhammaanna ay maaragtay
xuquuqihii asaasiga ah ee laga xayirayna maaragtay ugu horreeya mushaarkiisana inay maxkamadda ay u fasaxdo waxaana dareemi karnaa in kiiskaba uu yahay in maxkamadda aanan ka go-aan gaarin go-aan kama dambaysa aan soo gaarin in laga hormaray maxkamaddii oo mushaaraadkiisii la goosto ay ugu horeyso maxkamadda sharaftalena way mahadsan tahay halkaas waxaan kaga baxayaa cabdikaafi xasan maxamed ayaan kaga baxayaa sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ka galo korneel cusmaan xasan cosoble gabagabadiisii korneelkaasna waxaa lagu soo eedeeyey sidaasi la mid a qodobadii aan sheegay qodobka 241 farqadiisa koowaad lala akhriyey qodobka 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka labaad farqadiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo lala akhriyey qodobka 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo sharciga kortaga lacag dhaqida qodobkiisa 28 iyo koowaad iyo labaad farqadiisa qodobkiisa labaad dabcan mudane gudoomiye waxaa lagu celceliyey oo maxkamadda horteeda aada looga celiyey oo lagu soo eedeeyey waxay tahay waa lacag fiisa kordhina oo ka imaanaysay maamul goboleedyada ayuu lunsadaa layidhi waxaa isweydiin mudan inta aanan ka hadlin ma jirtaa horta lacag fiisa kordhina uga soo xaroota dowladda dhexe maamul goboleedyada uga soo xaroota horeyse muu jirta haddase ma jirtaa waa maya labadaas su-aal haddii la waaye miyay jiri kartaa marka waaya intaanan ka bixin taas cusmaan xasan cosoble korneelka waa agaasimo ku-xigeenka guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda meelay kaga qoran tahay ama ma jirto hadda gabagabadii ugu dambeysay ma uusan hal jeer hataa soo hadal qaadin dacwad oogaha ku matalaya xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka agaasimo ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda agaasimo ku-xigeenka guud ee maamulka iyo maaliyadda muusan dhihin waxaad arkaysaa waxay tahay waa qofka waa inay xiriir ka dhexeeya waxa lagu eedeynayo iyo waxa uu yahay waxa ay tahay waa in la caddeeyaa waa inay iswaafaqaan dabcan mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh ma jirin heshiis iska badaa lacag ka soo xarota fiisa kordhina heshiis maba jiraba oo dhaqangal ah ama dakhli qaybsi ah wadaag ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo la xiriira adeega fiisa kordhinta lacagtan waxay ahayd dabcan oo aan tilmaannay ma ahayn mushaaraad sida asiga u dhigay waxay ahayd waa lacag qaaraana halkaanaan ka sheegnay ka dhawaajina waa lacag qaaraana oo maamul goboleedyada laamaha maamul goboleedyada ay soo gudbinayaan madaxda maamul goboleedyada ay iska soo aruurinayeen markay iska soo aruuriyaan waxay lacagtan ku sameynayaan waxay tahay qofka xanuunsada dad madaxoo xanuunsaday oo lacag ay ku baxday ayaan sheegnay waxaa jirta transportation waxaa jirta ayaga baahiyo badan leeyihiin ayaga ayaa lagu kaabayay waxaa maamul goboleedyada dhammaantooda ma ahayn lacagahaas waxa soo diri jiray sida ka muuqata iyo sida uu sheegay xafiiska waa sax maamul goboleedyada waxaa jira ayaga iskooda loo caawin jiray waana sheegnay waana caddaynay waxaana ka mid ah maamul goboleedka koonfur galbeed asiga si iskiisa ayaa loo caawin jiray bal lacagahan ayaa lagu caawin jiray mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan horay aan u iftiimno haddana aan rabnaa inaan iftiimno marka lacagtan yar ee qadarka ah ee ku soo dhacday marka ay ku soo dhacdo ma maamuli jirin asiga iskiisa uma uusan maamuli jirin waxaa maamuli jira waxay tahay madaxda maamul goboleedyada ayaa iska lahaa awoodda maamulka iyo madaxda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ma aysan ahayn waxaana sheegnay waxay tahay sababta loogu soo diri jiray waxa ay ahayd waa nin mas-uula oo aan sheegnay in horeyna aan usoo sheegnay markaan tilmaamaynay in shakhsiyadiisa 162 tilmaamaynay nin inuu yahay aamin ah sidaas daraaddeed ayay ugu soo diri jireen akoonkiisa loona gartay in akoonkaas lacagta lagu shubo waxayna ahayd lacag walba meesha ay ku baxday iyo dawada ku baxday intaba waan caddaynay maxkamadda sharafta leh guntiga gabagabadii waxaan rabaa inaan usoo gudbiyo halkan ka codsado in maxkamaddu ay ka bariyeesho muwakilkayga korneel cusmaan xasan cosoble sidoo kaleeto hordhicii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda madaxdeeda ay ka hor dhaceen maxkamadda inay maxkamadda amar ay ku siiso in muwakilkayga xuquuqdiisii uu lahaa waa nin sarkaala shaqeeya waddanka xuquuq ku leh ma ahayn maanta ma mudnayn asigoo qof eedaysana maxkamadda waan dareemi karnaa maxkamadda waxaan rabnaa inaan dareensiina meeshaas ma dhicin horeyna mau dhicin haddana wax la maqlay lana arkay ma ahan in qof eedaysana ah xuquuqdiisii shakhsiga ahaa lagu tacadiyo dhammaanna eedaysanayaasha
inay yihiin ayaan filayaa sidaas wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu